بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano farqiga u dhaxeeya invention iyo innovation labadooda way is dhameystiraan balse farqi ayaa u dhaxeeya haddaan ku hormarno ereyga invention waxaan ku qeexi karnaa inay tahay in la hindiso ama la abuuro shay cusub oo aanan horay u jirin tusaale Alexander Graham Bell waxa uu hindisay telefoonka hortiisana ma jirin in dadka ku nool meelo kala fog si toos ah inay u wada xiriiri karaan oo ay wada hadli karaan haddaba markii la hal abuuray telefoonka waxa uu gacan weyn ka geystay in la horumariyo qaababka kala duwan oo ay dadka u wada xiriiri karaan tusaalahan oo kale ayaa waxaa loo yaqaanaa invention markana aan isla aragno qaybta labaad oo ah innovation waxaan ku qeexi karnaa in la keeno qaabab kala duwan oo loo horumarin karo hal abuurka waxaana la rabaa qaababkaas cusub ee loo horumarinayo hal abuurka inay buuxin karto baahida jirta ama qiimaha isticmaalka ay shayga inay sare u qaadi karto haddaba si aan u fahanno qeexidaas aan isla aragno tusaalahan smartphone-ka haddaan xasuusanno telefoonka wuu jiray balse in laga dhigo mid gacanta lagu qaadan karo sawir lagu geli karo marar badan looga maarmi karo laptopka haddaba horumarinta noocaas oo kaleeta ah ayaa waxaa loo yaqaanaa innovation waayo in dadka ay si toos ah u wada xiriiraan way jirtay balse in la casriyeeyo oo mar waliba wax lagu daro ayaa ah innovation gunaanad invention waa in la sameeyo shay cusub halka innovation ay ka tahay in la casriyeeyo shayga mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo